waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar arinta uu dhahay waxa tahay gabadhii ayadoon la furin intay Soomaali Maxmed soo horfarsatay tiri waa la ifuray warkiis waa la maqasheen xaqiisana waa kasoo dhageysteen kulay wuxuu yiri waxa tahay gabadhii ayadoon la furin oo la qabo tiri waa la ifuray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنيجي صور لافتي مر لواد سايجدان رمضان مبارك ملو البجوتان دمانتين أصحابتي ولاليك إن شاء الله هاي نيجي سلطان هاي فدوك كعي دال بوضا واسق أركتي الرياكشن اسكب بحنايو مفهمتي وحرباتي إني زائد يا إن بدن والي دوري حاجة كبعض هذا idinku hayde si sheegare muuqaalkan asxaabtiina la qaybsada aad baad ugu weyntiin aad waan idin jeclaa wallah rasmi ayaa soo hadashay muuqaalka ugu horeeyay kii aan soo dhigay oo farxaan soo hadlay haddana rasmi ayaa soo hadashay oo labada sugayay inay soo hadasho oo ah waa aniga goorma ku furay ahayd sheekada bal ayadana jawaabteeda bal aan aragno waxay dhacday iyo waxay la timaaday ma fahanteen marka kama hor dhaceeno walaasheen waxay la timaaday iyo jawaabta culus oo la sugayay oo timaaday baan isla arkayna duulaa yira okay waxaan rabaa inaan ka hadlo wax yar arinta uu dhahay waxa tahay gabadhii ayadoon la furin intay Soomaali Maxmed soo horfarsatay tiri waa la ifuray صح arintaas uu dhahay okay jawaabteedan ka sugeynaa haye warkiis waa la maqasheen xaqiisana waa kasoo dhageysteen kulay wuxuu yiri waxa tahay gabadhii ayadoon la furin oo la qabo tiri waa la ifuray okay horta arinka oo aan leedahay anigu ma furin haddaan ani ifurin markaan ku dhahaa waad ifurtay oo okay sorry hay isku wada haystay social media isla wada qaylinayay ayaa inta soo farsato ayaa waxa dhileed ani rasmi ma furin بين الشيء ساعة واحد كسر ورقة 6 بلاد انت حلي اوكي روما 6 بلاد كسورك تحلقات بكله بنان كله جوجتان يعني هذا اكل تغني مع العدد هذا اسكو صلابن اني هذه لما دحتاله برادر انت هذا كل معانا هذه او فرنين ما فرن اد سو دجست فيلن كل تاس وعدت ku taalo oo aad qabri kula galayso ana wadi furtay waan furtay ninay furina ma dhiileen ويفرق اوكي waa maqashaan waxay dhahday waad ifurtay niman idihin uu ifuruna ma dhihi lahayn dhahday uu ifuray ma fahantay marka dhibaatada jirta ayaaba taas ah la isku haysto jawaabta saxdan dabcan waatan aad maqlaysaan ay dhahday aniga waad ifurtay deynadero maxaa ku haqsaday nin weyn baa tahay beentaas iyo waxaas aad u dhahday aniga ma furin وأيضا أفكار كشيء سلذي وادي فرتي أوكي ومصير على حيو بل يان إذا كهر مرينة عن مقالك سلسي ديسن وأيضا رمضان وجهه بين أسوق بقشتي وفيوس صوتاجا مفهمتي أنا هذا كوتش بابا يا من كان عن علينا مرة كاسو هلا صاحب مفهمتي حتى سيد نفرق إنا وهذا الشيء أيا وناكس لكن سيد ضمر كنا سكاجا هذا الشيء ولا قف في عين هاي هذا يقطع وأنا أحرك وحيرنا هاي dad ay dhalaan ka soo tag ma fahanteen dad ay dhalaan waa iga soo daba hadal waa isoo raadsan lahayd adin dad ku dhalay waa soo dirsan lahayd laakiin naaga furta aha because waxaan isku wada imaan meesha ma yaalin fahanteen warun maanta gabadha hadii la qabo oo labada qof isku dhacaan mise xumaata isku geystaan waxa dhaxgalo ehel odayaashayna isku tagaan ay dhahay gabadhii wixii ku dhacay iyo wixii kalaba xal marin baan xal marineena saan baa xujiraan wixii loo geystana waan ka cudurdaarinayna ma fahanteen ninka wuxuu soo dhiibtay malahan wuxuu soo sheegtana malahan dad soo dirsadana malahan ma fahant marka waa sheeko cilmi weyn ma fahant marka anigu ku fududaanayn xagga xagaba
bal ay codka ku sii socono haddii maxaa la dhihi jiray intaa codad soo raasatay istiraahday maxaa la dhihi jiray kii maa hore kuu galeen kana bal intaa qof xabad yar intaa wacatid rasmi ka yara dhig oo ku dheh codkan rasmi aad ma tiimiya codkan aan maqlayno adiga ma tiid farxaan wax kale waaye صح معنا دقيقة راح تاي ما رحت شيكت ناظره يا أنا حسدين قبل أوينيس أوينيس وكدوبي سدهني عدت كم بطاطا أنا ما إيه تاي رسمي واوري وعلمك عليه هاي شيء إيه مركب كده ما أنا كفر ما كفرن إيه صاحب برتناك سعودي جلع سلميه الحمد لله وأسكعت كان فهمت وابني فرتي بنت عاد مسلم كرمضان كن حديث الله وريجنسو إسكتشوتشي صاحب وأدوركو قليو haddii aad u soo dhex fariisato qolka labada mitood ku jirtid inaa maxaa dhihi jiray aad been meelaha ka soo qabsatid aad dadka hor keentid taasi kaama soconaysa anaa soo taagan fahanta ani rasmi ceebti ku fuusha daarabtid inaad iska kaytirtirtid oo intaad codad raadsato meesha codad been la soo fariisanaysid saaxiib ani ma dhimanin qof dhintaa been waa run aad ma dhimanin weli waa soo taagan tahay weli waan ku jeednaa ilaahna kuma dilo saas ay tahana qof korta markuu nool yahay de waxyaalo been ah waxyaalo oo dhinacyada ka imaanaya waxyaalo oo aan loo baahnayn lagama sheegi karo ma fahantay ilaa qofkii oo cadeynta ah ay taagan ba nool ma fahantay marka dabcan had wax alla wuxuu soo sheegay wax alla wuxuu dhahayay wax walba akhrinay had waxa leedahay waa been ya dadkan sax wadaan laga sheegaa waxba dadka muslimka ku dhihin ani idin ma cafinayo dadka wax runay ka sheegeen wax been ka mi sheegeen saaxiib ma fahanteen heli karaan ani xilliga aan Nairobi maaday ayaan soo fariistoonay wax walba runta dadka u sheeg ma fahanteen una sheegina qofkaas kala dhamaateen dadka ka walbaharay ka walwalayo teeda kale waxa ku sheegaya waxay tahay intaas oo bari 20 bari aan fiisi tigid aan Hargeysa u joogo ma fahanteen idanahayga inta Soomaaliya aan Hargeysa aan joogay haddii naaka soo maqanto ani ay furin adii reerkaaga maxay iga dawmaan weyseen point because waxa isku warun gabadha horta markaa furtid kala tagtaan wali waxa haboon si nabad ah ragnimo ku jirto inaad garab taagnaatid tigidkeeda dad u xalin kartid dad u xalisay dad u xalin karan iyada aad ku garab siisid say ku xalin lahayd garabkeeda aad taagnaatid ilaa maadaama qoftan guurba idin soo dhaxmaray waxba idin dhaxmaray haddana wixii way isfahm weyseen waad kala tagteen marka waxa fiican si wanaagsan ee edeb ku jirto asturnaan ku jirto sharaf ku jirto ragnimana ku jirto inaad u soo dhaweysid iyadoo faraxsan ka soo tagto ma faham deba markaa furto way taas haddiidan furin inaad meesha sii taagnaato ma ahayn oo waxay ahayd inaad garab istaagtido oo aad garabkeeda noqotid laakiin waa kasii dhuumataa la sheegaya maxaa qaldan halow iga cilmi badantiin aye kusoo ina gabadha furteen ina xumeysa ogeed waadidina sakin iga dawmaatid ma fahamtay iga ma dawmaan kar naftaada waa cabsanaysa faxaan aniga diyaar uma ahayn inaan kusoo xigto la qaadno Nairobi way joogaan dadkii ila joogay hebel ma dhahay dadkii ila joogay markaad xiriirka sheeganaysay wax dhan sida u hadlaysay waa la wada ogaa naagta aad ka codsataa pointiga uu dhahayay anigoo social media ku jiro oo adiga raadinaysay numberkayga oo adiga raadinaysay meelahaas dhan oo adiga iga daydaysay numberkayga الله نيو سام بحجران سام بحجران وناكسن بعد سان هذانا إذا نحيله هذا صح معنا نيجا تفنانين تويس دير جليان وين إصلاح الله وين الشرفان مفند أوكي يعني لا إن التيكت كوسون درتو إذا نحيله هذا أنا وحنا قف كور تيكت كوسون دري هل كان كوكينا تاسنا بين معن أرجع شكتي تيكت كوسون درتي هل كان وقت مادي سمع وتراday maqaaxida ka shaqeeya waxa ka qaatan guriga aan deganahay ee $50 kiradiis ma ka badno ina ku imaada raba oo ku jecelahay fahamtay naagtaad ku dhahaysay ayaan ahay inta soo goostay tigidkaaga Nairobi imaaw ee aniga ugu xisaabtan cunuga ka sheekeynaysid ani meeshan geey guriga asheegis kaamira ku xiranay soo duubay noo keen waa hadii aad runta sheegaysid fahant saaxiib
muuqaalada laga sugaya rasmi soo hadasho waxay leedahay kaamirada guriga kugu xiran aad sheegaysay waan u baahanahay waa inaad keentaa haye inadeer waa lagu hayaa haye waxaad tiraaday ani hal mar aan gacan u qaaday halkaas marna Hargeysa ugu qaaday nin rag wuxuu naagar u gacan ugu qaadan wuu ogyahay yani wax sahlan maahan waxa gacanta igu qaaday adaa laga rabaa adu cunuga u doodaysid haddii adiga aad dhashay u gubanaysid aniga badada ay dhalay soo fahamtay maalinta maxkamadda aad soo istaagaysid oo cunuga aad dishay aad u doodaysid aniguna dood baa i furan oo ah markaad idilaysay ma adaa ay dhashay anigu dhaqankayga leeda dhiigayga ma lihid dad baa i dhalay ma fahamtaa waran dhaqankeeda leeda dhiigeeda ma lihid cunuga u danqanayana cunug meesha ma yaalaba asaga already hore u dilaa lahay teeni oo dad dishana waxa uu leedahay wax ma dilin sax macana dad wax dishay waxa uu leedahay wax ma dilin ma faham sheekada way dheeraatay story uu dheeraada naga soo gabagabay ma deeraa sheekada musalsal marka muuqaalkan kuma dheeraanayo xagga waxaan leeyahay walaalayaal iscafiya isamaxa dad walaala baatihiin dad hore isku faraxsanay baatihiin hadda dadii la kala tagay oo la isqabtay waxa fiican in la kala samro la kala afgaamsado la kala leexdo ma fahanti walaadana farxaan nin weyn baa Ilaahay ka dhigay codadkay waxaan aduweysido ayada oo dadka kale ka soo duweysid oo leedahay support garay difaac leedahayna in adeer runtu iska sheego YouTube aan kala kican rabaa mise wuxuu waa jiraan hadday jiraan xitaana waa gabar kahar halkaas ugu harnay rag baa Ilaahay ka dhigay si private ula hadal walaal saas wax jiraan si wanaag wax ku dhameysano ogow aan iscafino ma ayna social media sheekadan keentaan markaadina walaashay adina sidoo kale ana waxaan idinku talinayaa inaad sheekada meeshan ku dumisaan oo aad uga hartaan dhamaantiinaba waxa jid social media faa'iido ma keenayso intaas oo muuqaal dadka daawanaysa waxay ku sheegaysaa malaan sharaftaada ka weyn wax walba ma fahant marka gabka dhaha one love guys